halkani waa Faraj TV oo aad kala socon kartaan wararka geeska iyo geyiga ay Soomaalidu degto kuwooda ugu muhiimsan. Qodobada wararka aan idiin haynana waxaa ka mid ah Xasan Daadi wasiirka madaxtooyada dowladda deegaanka Soomaalida iyo Garaad Kulmiye oo lagu helay musuqii ugu badnaa adig ee dhanka dhulka magaalada Jigjiga. ciidamada difaaca Tigreega oo furtay gobolka Walqayb. Geetaajo Radda oo sheegay inuu aabihii soo hubeynayo beeralayda Axmaarada. fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe sar channelka gambaleelka furo si aad u hesho xogaha ugu dambeeya. fiidiyowga like sar oo share dheh si aad ula wadaagto asxaabtaada. wixii tala bixin ahna xagga hoose nagu reeb. kusoo dhawaada qodobadii wararka oo faahfaahsan. wararkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Marwo Yusuf. qiimayntii sanadlaha ahayd ee lagu sameynayay maamulka magaalada Jigjiga ayaa waxaa lagu ogaaday inuu wasiirka madaxtooyada dowladda deegaanka Soomaalida Xasan Daadi uu gatay 69 boos oo gudaha magaalada Jigjiga ah, halka Garaad Kulmiye oo odaynimo sheegta wax xil dowladeed ahna aan haynin haba yaraatee lagu helay inuu Jigjiga ka gatay 81 boos oo qaarkood yihiin beero ku yaala agagaarka magaalada Jigjiga, goobo ganacsi oo 23 ah, hoteel weyn oo dhismihiisu socdo iyo qaar kale. boosaskan ayay ila xogagalihii noo sheegeen inaysan Xasan Daadi iyo Garaad Kulmiyeba gadanin ee ay inta badan boosaskani yihiin kuwo xoog lagaga qaatay shacab u badan beesha reer Cabdille oo ay ka mid yihiin danyar, ganacsato iyo mas-uuliyiin hore, kuwaasoo sharciyadii dhulka ee xujadaha haysta, balse ay maamulka magaalada Jigjiga madaxtooyada dowladda deegaanka Soomaalida komishineerka booliska iyo Garaad Kulmiye u heshiiyeen una samaysteen xujado lahaanshaha dhulkaas ah, iyadoo xujadihii sharciga ahaa ee ay haysteen mulkiilayaasha xaqa u lahaa dhulalkaasi la iska indho iyo dhagaba tiray. sida xogta lagu soo gaadhay, waxay kooxdan qowlaysatada ah ee u heshiiyey dhulalka shacabka masaakiinta ah ee beesha reer Cabdille ay ku lahaayeen magaalada Jigjiga, waxaana dabada kaga riixayay arrintaas oo intooda badan ku khasbayay inay nimankan jidwar dadka dhacaan madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mustafa Cagshar. dhulka iyo hantida shacabka reer Cabdille ee ay beesha bartire dhacday kuma koobna intaas ee waxaa jira xataa guryo ay la wareegeen iyo ganacsiyo ay xoog kaga qaateen, taasoo ay dhaca hantidaas hormuud ka ahaayeen Garaad Kulmiye, Xasan Daadi iyo maayarka maamulka magaalada Jigjiga. ciidamada difaaca Tigreega ee ka amar qaata jamhadda mayalka adag ee TPLF ayaa saanad hub iyo gaadiid isugu jirta ka furtay maleeshiyaadkii Axmaarada ee isku urursaday gobolka Walqayb oo ka mid ahaa deegaanka Tigreega 30 sano ee la soo dhaafay, balse 8 bilood ee u dambeysay ay ciidamada Axmaaradu la wareegeen iyagoo kaashanayay militariga Itoobiya iyo kuwa Eritrea. furashada saanadan hubka, raashinka ciidanka iyo gaadiidka isugu jirta ayay ciidamada Tigreegu sheegeen inay ku qabsadeen dagaalkii shalay subax ilaa maalinnimadii ka socday gobolka Walqayb iyo goobaha hoos yimaada, waxayna hogaaminta ciidamada Tigreegu tibaaxeen inaysan keliya hub iyo gaadiid ka furanin Axmaarada ee ay guud ahaan ka furteen gobolka Walqayb, degmooyinkiisa iyo tuulooyinkiisa intaba. maxaabiis badan oo Axmaaro ahna ay gacanta ku dhigeen kuna sii wajahan yihiin furashada gobolka kale ee Raaya, kadibna ay gudaha deegaanka Axmaarada u sii gudbi doonaan ilaa iyo inta ay bahardar ka qabanayaanna aysan tanaasuleynin
iyagoo tilmaamay inay qabashada Bahardar iyo Gondar uga muhiimsan tahay wax walba xataa caasimadda dalka ee magaalada Addis Ababa isla markaana qabashada caasimadaha axmaarada ee Bahardar iyo Gondar ay wax walba ka horreysiinayaan wax walbana ku bixinayaan oo aysan dib u soo jeedsan doonin ilaa inta ay gacanta ku dhigayaan kana waaban doonin meelna oo ay ku dhammaanayaan ilaa shakhsiga ugu dambeeya ee Tigray naftu ka baxayso. Getachew Reda ayaa dowladda dhexe ee Itoobiya ku eedeeyay inay hubeynayso beeralayda axmaarada. Getachew Reda oo ahaa fayeenka jumhadda mayalka adag ee TPLF ayaa yidhi Abiy Ahmed wuxuu soo hubeynayaa kumanaan beeralayda axmaarada ah halka ay ciidamadiisa oo hub iyo taangiyo waaweyn watay ay hor istaagi waayeen ciidamada Tigray. beeralayda axmaarada oon taangi haysanin miyay hor istaagi karaan kuwii ay hor istaagi waayeen kuwii hubka waaweyn iyo taangiyada watay ayuu hadalka ku soo gabagabeeyey Getachew Reda.